إسلام دان مسلم لما شاقاي ما سلام وحيالاي دان إسلام لما شاقاي ما سلام ومدان يالاي لما بقل سدح بقل وقفولا أبا بعدين إلا سن بقل waa burburkii ka dhashay weerarkii ugu xumaa ee abid ka dhaca Soomaaliya waxa uu ahaa mid galaaftay nolosha dad fara badan reebayna xusuus lama iloobaana waxay ahayd maalin sabti ah oo la mid ah maalmaha kale marka loo eego ganacsigii saxmadii iyo dhaqdhaqaaqii socday ka hor intaanay dhicin musiibadii ku habsatay dadkii ku sugnaa ama kaag dhawaa agagaarka Soobe daqiiqado ka hor salaadii casir ayaa hal mar waxa isbedelay jawigii waxaana bilowday jahwareer iyo dhibaato tii ugu xumeed ee soo marta dadka Soomaaliyeed 14 Oktoobar 2017 waxay noqotay maalin aan ka go'aynin xusuusta iyo qalbiyada ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhibanayaasha weerarkii ugu xumaa ee ka dhaca qaaradda Afrika inta la xasuusto sanadooyinkii ugu dambeeyay goobtu waxay ahayd meel aad u mashquul badan oo ay ka socdeen ganacsiyo kala gedisan waxaana xilligii uu qaraxu dhacayay isxiray wadooyinka gala isgoyska Soobe baabuur nooc walba lahaa oo aad u tiro badnaa waxaana la dareemay ciriiri aad u xoogan khubaradu waxay ku tilmaameen baabuurka loo adeegsada qaraxa inuu ahaa nooca kuwa xamuulka ah kaasi oo laga soo buuxiyay 100 kilogram oo waxyaabaha qarxa noocyadii ugu halista badnaa wuxuuna u ahaa bay yiraahdeen qaraxaasi mid lagu sameeyay gacanta musiibadii Soobe waxaynu dib u eegi doonaa nolosha dadkii uu saameeyay qaraxa aragtida dadkii ka qayb qaatay gurmadka iyo in la fuliyay iyo in kale ballanqaadyadii la sameeyay iyo talooyinkii la soo jeediyay weerarka kadib waxay qaadatay maalmo in meydadka laga soo saaro burburka dhismooyinkii dumay hoostooda waxaana la aaminsan yahay inay jiraan dad badan oo xitaa jirkooda uu baaba'ay arrintaasi oo loo sababeeyay xoogga iyo awoodda uu lahaa qaraxaasi iyo halista kiimikada waxyaabaha laga sameeyay qaraxaasi in la hubiyo tirada rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qaraxa Soobe ayaa iyaduna qaadatay muddo 5 bilooda warbixin uu soo saaray guddiga taakuleenta iyo gurmadka qaran bishii saddexaad ee sanadkii 2018 waxa lagu sheegay in 587 qof ay ku dhinteen qaraxaasi halka dhaawacuna uu kor u dhaafayay 300 oo qof tirada carruurta ku agoontowda qaraxaasi waxa ay kor u dhaafaysaa 1500 sida uu sheegay guddiga inta badan dadkii ku waxyeelooba qaraxa waxaa loo kala qaaday wadamada dibadda halkaasi oo loogu fuliyay daaweyn iyo daryeel jugta ma maqal waxay ugu dhacay jugta iyo nabarkay gaaray ma xasuusto anigoo waxay ugu dhaceen baan arkay laba lugood waa ka jabay taankan nabar weyn baa iga gaaray maskaxda bir baa iga gashay gacantaan way go'day bir baa inta ku jirto hadda cod ka haysata oo hadda weli ku jirta kulli sida la ii sheegay static fairleki dawladda Turkiga baa gurmad samaysay inay dadkii qaato 5 bilood dawladda Soomaaliya gurmad bay samaysay gaar ahaan waxaa gurmad sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Taabit baa loo rajeynay naastiisa aniga aqoon uma lahayn laakiin gudoomiyaha Taabit baa dadkii gurmadka sameeyay ka mid ahaa gaar ahaan aniga asaga ay qaaday isbitaalkaas ay soo saaray diyaaraddan asaga ay saaray gacantiisa uu qaaday mana aqoon marka waa mahadcelinaa aad baan u mahadcelinaa weerarkii Soobe waxa uu daaha ka rogay xaqiiqda ah in magaalada Muqdisho ee caasimadda aanay u diyaarsanayn la tacaalida mushkiladaha iyo wax ka qabashada xaaladaha degdega ah markii uu qarax u dhacay waxa adkaatay in markiiba gurmad loo helo dhibanayaashii goobtii ayaa waxay noqotay meel la geli waaye waxaa sii kacay oo si xawliya u fiday dab ka dhashay qaraxa oo saameeyay guryo badan oo ka ag dhawaa goobta qaraxa waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo baaqii xalan aan jeediyey oo aan dadka Muqdisho degan uga codsaday inay dhiigooda shubaan isku soo baxaan markii uu dareemay xaaladii adkeed ee waqtigaasi taagneed waxaa qasab ku noqotay gudoomiyihii gobolka Banaadir ee waqtigaasi oo isla markaana ahaa duqii magaalada Muqdisho Thabit Cabdi Maxamed inuu baaq ka jeediyo warbaahinta oo ku baaqo in loo gurmado dadka dhibaatadu gaadhay boqolaal qof oo u badan dhalinyaro ayaa saacado yar gudahood waxa ay ku ajiibeen baaqaasi
kuwaasi oo isugu jiray kuwa dhiig ku deeqay iyo kuwo kale oo ka qayb qaatay gurmadka iyo samata bixinta dhibanayaasha. ha yeeshee waxaa soo food saaray caqabado dhowra oo ay ka mid ahaayeen in aanay haysan qalab casriya oo ay ku howlgalaan iyo in magaaladu aanay lahayn adeegga degdega oo ka jawaabi kara musiibooyinka. sidoo kale cisbitaalladii ayaa xamili waayey meydadkii iyo dhaawacii waxaana ku adkaatay in ay adeeg caafimaad u fidiyaan dhibanayaasha. waxay ahayd wax aan laga fadhin karin NMS cunto laga cuni karin laga hurdi karin habeenkii maanan hurdin wax aan sameynayna ma lahan maanta intaan meesha galno xoog ku galno xataa ma awoodno dadka u baahnaa caawinaad inaan caawin. inkastoo dad badani ay u soo baxeen in gacan ay ka geystaan samata bixinta dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay, haddana waxaa la waayey adeegyo muhiima sida halkii lagu keedin lahaa dhiigga. istaalada waxaan kala kulannay culays badan oo ah in la dhahay haddaad dhiig shubaysiin xataa meelaa dhiig ku shubna malan dadkina ay dhiig u baahan yihiin. guddoomiyihii gobolka banaadir ee xilligaasi mudane thaabit cabdi moxamed ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii horkacayay hawsha gurmadka. waxay ahayd howl culus oo qaadatay dhowr maalmood. thaabit waxa uu ka warramay murugadii iyo xanuunkii uu reebay weerarkaasi. waxa uu sidoo kale ka hadlay cadaaladda iyo daryeelka ay filayeen dhibanayaasha iyo haatan iyo in ay heleen wixii ay filayeen iyo in kale. dhib intaas la eg ama masiibo intaa la eg markay dadka gaartana cadaaladdu qofka filan kara waa afar nooc. midda ugu horreysa waxay tahay in dambiilihii la soo qabto oo sharciga la marsiiyo. midda labaad waxay tahay in dawladda ay magdhow ka bixiso mas-uuliyaddana ay ciidu qaadato. midda saddexaad waxay tahay in daryeel joogto ay helaan dadkii waxyeellada ka soo gaaray ee ku agoontoobay, rajo ku noqday, ku maalbeelay amaba ku naafoobay. midda afraad oo qofka cadaaladda uu filan karana waxay tahay in la abuuro jawi nabdoon, xasilan oo lagu damaanad qaadi karo in dhib intaan la eg uusan mar kale dhici karin. saacado kadib markii uu weerar ka dhacay waxaa caddaatay in musiibadani ay tahay mid Soomaaliya keligeed aanay waxba ka qaban karin. maalmihii xigay weerarka waxaa magaalada Muqdisho si isdaba jooga u soo gaarayay kaalmo ka timid dibadda. dhowr waddan oo ay ka mid yihiin Turkiga, Qatar, Kenya, Djibouti, Ethiopia iyo Imaaraadka ayaa soo diray dawooyin, shaqaale caafimaad iyo gargaar kale, iyadoo qaar ka mid ah waddamadaasina ay dhoofiyeen dhaawacyadii intii xaaladoodu liidatay. bilooyin kadib markii ay soo afjarantay hawshii gurmadka, baadigoobka meydadka iyo in la guro haraagii burburka, waxaa bilaabatay in su'aalo la iska weydiiyo ciddii ka dambaysa weerarka iyo sababta looga hortegi waayey. dowladda ayaa ku baaqday baaritaan. waxaa la soo xiray rag lagu eedeeyey weerarka, qaar ayaa la xukumay, halka mid ka mid ah eedeysanayaashaasi xukunkii dilka ahaa lagu fuliyey sannad kadib qaraxaasi markii uu dhacay. dhinaca kale waxaa sidoo kale jiray talooyin dhowra oo uu soo jeediyey guddigii taakuleenta ee gurmadka qaran, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen in la sameeyo xarun lagu keediyo dhiigga, xarumo kuwa degdega ah oo si dhaqso ah u gurmada haddii ay dhacdo dhibaato, iyo in daryeel iyo taageero loo fidiyo lagana warhayo carruurtii waalidiintooda ku waayay qaraxaasi. dhinaca kale qaraxii 14 Oktoobar waxa uu mideeyey shucuurta iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan. marka laga reebay in shacabku ay ku deeqeen malaayiin doolar oo gargaar ahaa, haddana si gaara waxaa loo xusi karaa in kumanaan kun oo dhallinyaro ah markii ugu horraysay ay ku dhiiradeen in ay isugu soo baxaan waddooyinka caasimadda. waxaan ka ciribtiri doonnaa magaalada Muqdisho oo dhan. Muqdisho waa nabad, Xamar waa nabad, Soomaaliya waa nabad, meel walba waa nabad. waxa ay diyaar u ahaayeen in naftooda ay u huraan difaaca dalka iyo dadka. maanta waxayna hor yaalla ma quusanayno oo naxariista alla lagama quusto, damiirta ummadda Soomaaliyeed lagama quusto. falkaas nagu dhacay oo maanta ay tahay inaan ku xusuusanno gurmadkii ummadda Soomaaliyeed iyo dhibtii ummadda gaartay, iyo sidoo kale inaan ku xusuusanno in uu jiro cadow argagixisa oo Al-Shabaab ah oo mar walba jecel inuu sidaa noo gumaado, ayaa waxay tahay in dib dadkii la isugu raadiyo, enerjigii la dhaliyo, hoggaankii xaqiiqatan horkici lahaa ee ummaddan dareenka saxda ahaa ay wada qabaan oo dhibta wada gaartay ee guri walba gaaray in looga faa'iideeyey in uusan mar dambe ku soo laaban. taa ayaa muhiim ah. waa goobtii uu qaraxu ka dhacay. dib ayaa loo dhisay daarihii burburay. waxaa sidoo kale dib loo unkay ganacsigii baaba'ay.
xaaladdiina waxa ay dib ugu soo noqotay sideedii hore balse murugadii iyo dhaawacii dhinaca maskaxda ee uu reebay qaraxa weli waa mid taagan waxaase hubaal ah in haddii aan wax laga beddelin qaabka loo sugayo ammaanka islamarkaasina aanan la qaadin tillaabooyin wax looga qabanayo musiibooyinka laga yaabo inay dhacaan